shirkadda Sostec markii aan aasaasay oo ahayd sanadkii 2006 wuxuu ahay fikirka aan ku aasaasay markaas oo wadanka aysan ka jirin wax oo adeeg tiknoolajiyadeed oo dadka Soomaaliyeed ay ka faa'iidi karaan dad yar oo isticmaalaya tiknoolajiyada oo farkuturis ah waagaas waxay ku dhibanaayeen inay dibadda ay wax ka dalbadaan taasoo uga bixi jiray kharash fara badan kharashka ka suko dhibaatooyin ka soo gaaraya dadka yar oo isticmaalaya waagaas 2006 adeeg tiknoolajiyada ee ku noolay Muqdisho waxaa kamid ahay in ay ku haysteen caqabad dhanka support-ka ah haddii aan leeyahay qofka support gareyna ama luqadiisa ka duwan ama time badan ku qaadana aniga oo markaas soo bartay computer science gaar ahaan programming fikirkaygan uu ahaa ilaa intaan jaamacadda dhiganay in aan wadankayga ka hirgeliyo barnaamij tiknoolajiyadeed hadaf dheer iyo aragti fogna ku dhisan taasoo oo ugu talagalsanay in dhammaan inta afka Soomaaliga looga hadlo idil inuu ka shaqeeyo company-gan dadaal badan iyo waqti badan oo soo galiyay wadanka markaas caqabado badan ay ka jireen dadka oonan fahansanayn horta waxa aniga aan markaas adeega aan keeno tiknoolajiyada maba aysan la jaan qaadsanayn dadka because of dhibaatooyin badan wadanka ka jira awis waxa sii dheeray qodob barnaamijkan oo ah shirkadda Sostec aniga aan aasaasay oo asalkiisu yahay tiknoolajiyo baahi tiknoolajiyada qof haysa in loo xaliyo aysan dadka aaminsanayn inay gabar xalin karto this waxay ahayd waxyaalaha ugu badan oo aniga aan soo maray oo alxamdulillah laakiin dadka ayaga sidoodaba mar haday arkaan waxa uu tus oo taabsi oo ku qancayeen shirkadda Sostec maraaxilo fara badan min 2006 ilaa haddaan joogno 2016 waxaan aad ugu faraxsanahay team badan inay shirkadda hadda ay ka shaqeeyaan dad professional oo xirfadii tiknoolajiyada aaminsan ay joogaan adeegyo badan oo dhanka tiknoolajiyada aan soo saarnay barnaamijyo fara badan oo shirkadda aan soo saarnay oo products oo annaga aan leenahay oo aan ku faanayno oo leenahay tiknoolajiyada yes qofka Soomaaliga ee hal abuurka leh iyo dhalinyarada Soomaaliga ee hadii loo deeyo wax badan way soo saari karaan barnaamijyo waaweyn ay kamid yihiin isbitaalada oo waxa la yiraahdaa shaafi iskuulada ay isticmaalaan dugaal waxa jira ganacsatada mid isticmaalaan oo idurdur dhanka ardayda oo kale waxaan u sameeynay maadaama annaga aan nahay tiknoolajiyo waxaan isku daynay inaan doorka annaga noogu aadan aan ka qaadano waxaan u sameeynay system la yiraahdo aflixi.com oo bar internet ugu talagalnay ardayga Soomaaliga haddii uu caqabad tiknoolajiyo ama caqabad fieldiga uu barana uu kala kulmo dad expert oo fieldiga ku jiro oo practical hayo inay uga jawaabaan su'aalaha uu soo weydiiyo waa hal abuur aan iska lahayn shirkadda Sostec aflixi.com sidoo kale waxaa jiro barnaamijyo aan ugu talagalnay in oo bulshada ay shirkadda profit ka yimaado dib aan ugu celino oo مثلا aan ka support gareyno مثلا qofkii aan dareeno ama institutionkii ka shaqeynayo horumarinta bulshada inaan ka caawino aan wax walba oo tiknoolajiyo khuseeyo laga bilaabo inaan u sameeyno website-kiisa domain-kiisa u design gareyno una host gareyno training aan ku siino aan wax kosti aan ka qaadin sidoo kale aan caawino مثلا iskuulada oo aan siino discount ka badan inta aan siino bulshada inteeda kale